بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعن وناكسن صاحبيال meel walba oo dunida ka joogto waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay guud ahaan caalamka gaar ahaan dagaalka culus ee ka holacaya gobolka bariga dhexe qodobada ku soo qaadan doonaan waxaa kamid ah Iran oo goor dhow ku qaaday mid kamid ah weeraradii ugu cuslaa dhulka gumaysto xoog ku haysto hadda waxaan kale oo barnaamij ku soo qaadan doonaa dalalka gaar ahaan madaxweynayaasha Ruushka iyo Shiinaha oo fariinta hanida u diray dawladda wadanka Iran caawinaad culus oo dhinaca militariga u ballan qaaday hadaba waxay tahay caawinaadaasi barnaamijka ku soo qaadan doona hadii la ka dhigo dawladda Qatar oo gacanta ku dhigtay boqolaal jawaasiis hadaba maxay ahaayeen shaka cajiib ah ayaan idinka haya barnaamijka ku daawan doontaan hadii la ka dhigo dawladda wadanka Turkiga oo bilowday daabulitaanka hub iyo diyaaradaha casriga ah ee dawladda wadanka Turkiga xagee loo wadaa barnaamijka ku soo qaadan doona hadii la ka dhigo saaxiibada iyo aad u mahadsantiin soo dhawaada marka ugu horeysa aan ku bilowno duqiimaha culus ee militariga dawladda wadanka Iran goor dhow ay ku garaaceen markaasi dhinaca iyo maamulka gumeystaha waxaa telefishinka Al Jazeera uu wareegaya duqeymo culus in lagu qaaday maamulka gumeystaha sidoo kale toona waxa la wareegaya weeraradii u dambeeyay inay ahaayeen kuwa aad markaasi u naxariis daran marka la eego weerarada ay qaaday dawladda wadanka Iran balan soo qaadana warbixin kooban oo telefishinka Al Jazeera uu markaasi shaacinayo ugu yaraantii sida la leeyahay waxa ku geeriyooday dad Israa'iiliyiin oo 4 ilaa ugu yaraantii 2 qof la sheegay waxaana gantaalka maanta lagu garaacay dhulka xoog lagu haysto gaar ahaan inta goobood uu kala baxay oo gantaalkaas oo kaliya ku dhacay waa soo qaadan doona laakiin waxa la waranayaa gantaalkan inuu watay madaxyo ilaa iyo 25 qunbulooda ama waxa uu lahaa 25 madax wakaalada wararka la yiraahdo Maarif ee ka soo baxda dhinaca iyo maamulka gumeystuhu waxay leedahay dagaalkaas maalintii 10aad inkastoo uu dagaalka marayo laakiin haddana gantaalkan maanta ama goor lagu dhuftay dhulka Israa'iil ay xoog ku haysato gaar ahaan xaafado badan oo ku yaala magaalada Tel Aviv waxa uu ahaa mid kamid ah weeraradii ugu cuslaa iyo gantaaladii ugu halaaga badnaa iyadoo dagaalka maalintii 10aad uu marayo ayaa argagax iyo culeys tir badan laga soo wareeraya dhulka gumeystuhu xoog ku haysto wajaajirada kale ayana la yiraahdo Israa'iil hayoom ayaa iyana daabacday saldhig ee markaas ay saaruqaasi inuu ahaa inuu markuu ugu horeyso ku dhacay meesha la yiraahdo ee Bata Ayam oo ku taala markaas ay koonfurta magaalada Tel Aviv waxa kale oo iyadana sidoo kale kanaalka 12 ee isagana ka soo baxay maamulka gumeystaha Israa'iil ayaa isaguna baahiyay gantaalkaasi inuu ahaa mid aad u culus 24 madaxyeen uu watay qiimihiis ama culeyskiisna mid walba oo 24 kaasi kamid ah markaas kanaalka la yiraahdo 12 waxa uu ku qiyaasayaa inuu markaas u dhaxeeyo 2 kilogram ilaa iyo 5 kilogram waxaana uu goystay burbur baahsan oo baaxad leh oo markaas xaafado kala duwan oo ku yaala magaalada Tel Aviv ee caasimada dhulka ganacsiga ee Israa'iil xoog ku haysato sidoo kale iyaguna warbaahinta maamulka gumeystaha iyagana xusay saaruqani inuu ahaa mid kamid ah kuwa ugu cuslaa waxaana uu markaas khasaarihiisu u gaarsiiyay ilaa iyo 6 goobood oo ku yaala waxa meesha loo yaqaan Tel Aviv al-Kubra ayay warinayaan warbaahinta maxalliga ah ee dawladda maamulka gumeystaha Israa'iil waxaad ka qiyaasi kartaa waxaan oo warbaahinay waxay waranayaan dhamaantood gantaalka maanta la soo turay inuu kamid ahaa mid kamid ah kuwii uga halaaga badnaa wanu eegi doonaa jamhuuriyadda islaamiga ee Iran iyo gantaalka ku weerartay waxa uu ahaa waxaana ina sidoo kale tolo waranayaa nin khabiir ah oo telefishinka Al Jazeera falanqeeyo ka ah oo la yiraahdo Nadal Abu Zaid la yiraahdo yaa isaguna sheegay gantaalkani inuu ahaa mid kamid ah gantaaladii ugu cuslaa ee maalmihii ugu dambeeyayba maamulka dawladda wadanka Iran gaar ahaan ciidanka ilaalada kacaanka ay sida ba'an ugu tumeen dhulka Israa'iil xoog ku haysato waxaana uu markaas khabiirkan dhinaca militariga ku sheegaya gantaalkaasi inuu ahaa kharmashaha 4 gantaalka la yiraahdo kaas oo wata madaxyad aad u tiro badan Israa'iil waa markii ugu horeysay oo ay sheegto in hal gantaal oo ka tirsan marka ay soo turtay militariga marka ama ciidanka ilaalada kacaanka Iran uu gaaray 6 goobood waxaana ay watay bayraadeen 25 ilaa 24 madaxyeen inta u dhaxaysa laakiin waxa jiray gantaalo badan oo sidoo kale Iran ay soo turtay oo mid kamid ah uu 70 gantaal watay kuwana la waranayo ilaa iyo 200 oo madaxyo oo qarax inay wateen kuwaas oo la waranayo ugu yaraantii 5 kilogram wax ka badan midkiiba madaxyadaasi in uu markaas wado marka waxa la waranayaa dhibaato culus ayaa ka taagan sidoo kale qaar kamid ah warbaahinta aan iraahday waaxda difaaca dadweynaha ama ambalaasyada maamulka gumeystaha Israa'iil ayaa iyaguna waranaya xitaa duqeyntii maanta dhacday ee gantaalkaasi inay soo gaareen xaafada la yiraahdo balad yahuudi la yiraahdo ee ku taala markaas ama u dhow garoonka Ben Gurion la yiraahdo oo ku taala isaguna markaa bariga magaalada Tel Aviv koonfurta bariga waqooyiga meel walba Tel Aviv way ka holcaysaa maanta sida inta badan ay waranayaan warbaahinta maxalliga ah ee maamulka gumeystaha
wasaaradda caafimaadka ee maamulka gumeystaha ayaa iyaduna waxa ay daaha ka qaaday tiradii ugu dambeysay iyo dhaawaca dhimashada ku kortay waxaana ay warisay dadka ku dhaawacmay in hadda ay gaareen 2142 qof laakiin ila kala duwan oo arrintaas sheegaya waxay leeyihiin 2000 bad warinaysaa dhaawaca dadka Israa'iiliyiinta ilaa iyo 8000 ayuuba cagacageynayaan laakiin dhinaca kale waxay leeyihiin 142 kamid dadkaasi dhaawaca ka soo gaareen isbitaalada ayay ku jiraan oo xaalad culus ayay wajahayaan sida ay warinayso maamulka wasaaradda caafimaadka ee gumeystaha wariyaha telefishinka Al-Jazeera uu jooga raadaanta galbeed la haysto ninka la yiraahdo Waliid Al-Umari ayaa isagu waxa uu sheegayaa in xitaa duqeymaha goordhow ama maanta ay soo gaareen Tel Aviv ka sokow in la garaacay Qudus daanta galbeed ilaa iyo bartamaha dhulka Israa'iil ay xoog ku haysato marka howlaha halkaas ay marayso oo marba marka ka dambayso sheekada aad iyo aad ayay u adagtahay dhinaca kale dowladda wadanka Qatar ayaa sheeko cajiib ah iyadana laga soo warinaya Qatar waxay leedahay wasaaraddeeda arrimaha gudaha ee dowladda wadanka Qatar ayaa waxay tiri waxaan gacanta ku dhignay bay tiri 313 qof oo dhamaantood jawaasiis ah waxayna isawirayaan bay tiri goobaha gantalada ku dhacan iyo sidoo kale telefoonadoodan waxa laga helay macluumaad oo aad u sareeya marka waxay ahaayeen bay tiri kuwa ku shaqoos ama ku mashquulsana sirdoon iyo barnaamij basaasnimo ah oo ka dhana dowladda wadanka Iran laakiin Qatar waxay sheegtay jawaasiistan la qabtay intooda badan in ajnabi ay ahaayeen laakiin arintan wax cusub ma dhawaantan mid kamid ah wariyaasha Mareykanka ugu caansan oo markaas si weyn uga hadla Tucker Carlson la yiraahdo ayaa waxa uu sheegay in maamulka gumeystaha Israa'iil ay jawaasiis tiro badan ay galiyeen wadamada khaliijka uguma sii jirta ayuu yiri Qatar iyo isku Imaaraadka Carabta iyo markaas Sacuudi Carabiya marka dhawaantan sidoo kale dowladda wadanka Qatar waxay qabatay jawaasiis markaas doonayay in ay qarxiyaan ilaha dhaqaalaha wadanka Qatar waxaana la weeraraya jawaasiis oo dhan inay u shaqeeyeen Mossad hay'adda la yiraahdo ee dhinaca mukhaabaraadka dibadda u qaabilsan maamulka gumeystaha Israa'iil dowladda wadanka Qatar marka inkastoo ay sheegtay in ajnabi ay yihiin intooda badan dadka wadamo kala duwan ay ka soo jeedaan laakiin ilaa iyo hadda ma sheegan oo shaaca kama qaadin inay u shaqeeyeen maamulka gumeystaha ama sidoo kale xulafo kale oo gobolka ah oo mukhaabaraadkaas ay u shaqeeyeen sawirada ay qaadeen iyo goobaha ay ka qaadeen iyo macluumaadka telefoonadooda ku jira ayaan wax badan ka shafay sida dowladda wadanka Qatar gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha ay warinayso waxay u badan tahay marka sida khubaro badan ay tilmaamayaan jawaasiistan hadiiba aanay ahayn 300 ba aanay ahayn baa la yiri ku u shaqeynaya maamulka gumeystaha hadii ay dawladda kale u shaqeyn lahaayeen waxa la leeyahay markaas dawladda Qatar waa ay shaacin lahayd laakiin iyadu laftarkeeda maadaama ay kamid tahay wadamada ku hoos nool handadaada xoogga gumeystaha iyo dawladda wadanka Mareykanka inkastoo tirada kor ay ka sheegtay laakiin haddana lama shaacin lama filayo ayaa la leeyahay in si rasmi ah u shaaciso dawladda u shaqeynaya in halka ay ka soo kala jeedeen maxaa yeelay hadii marba ay Mossad u shaqeynayaan in sutaga Imaaraadka Carabta boqortooyada Sacuudi Carabiya iyo dawladda wadanka Qatar ama guud ahaan wadamada khaliijka kuma dhacaan in mukhaabaraadka maamulka gumeystuhu ay markaas kor u sheegaan waxay u badan tahay si yaro tartiib ah oo u dhimrinay ku dheexan tahay in loo sii deyn doono Israa'iil laga codsan doono bal iyana ay ka yareyso marka arbushaadka ay ka wado gudaha wadamada Carabta waa sheeko cajiib leh hadda ogow dagaalka 10 maalin oo kaliya ayuu soconayay Qatar waxay warinaysaa 313 qof oo jawaasiis ah isla markaana waliba qaarkood hawlaha halis ku hawlana inay gacanta ku dhigto waxa dareemi kartaa marka xaaladda in aad u culus tahay dagaalka gobolka bariga dhex ka soconaya isaguna in muddo badan oo jiitamayo waxa ka dhinaca iyo wadamada Ruushka iyo Shiinaha hadeenu eedna tusaalahan madaxweynaha wadanka Ruushka Vladimir Putin ayaa fariinta haniyada u diray hogaamiyaha cusub ee la doortay Jamhuuriyadda Islaamiga ee Iran ninka la yiraahdo Ayatollah Mujtama Ali Hussein Khamenei waxaana uu sheegay inuu si weyn u soo dhaweynayo isla markaana uu yahay nin halyeeyo adag laakiin dawladda wadanka Shiinaha ayaa sidoo kale iyana Israa'iil fariinaha jabaada u dirtay waxaana ay sheegtay dawladda wadanka Shiinuhu mar dambe inaanay u dulqaadan doonin laynta madaxda dawladda wadanka Iran waxaan Israa'iil ugu digtay in talaabadaas ay ku dhaqaaqdo haddii la isku dayo bay tiri wasaaradda arrimaha dibadda dawladda wadanka Shiinuhu mar kale in la kharajiyo iyo hanjabaadda ka dhanka ah ee hogaamiyaha cusub ee dawladda wadanka Iran Israa'iil iyo Mareykanka ay ka imaanaysa lama qaadan karo arrintaas mana aha wax mar dambe la aqbali karo ayay tiri Beijing waxaana muuqanaysa durbaba taageerada culus ee dawladda wadanka Shiinaha dawladaha Shiinaha iyo dawladda wadanka Ruushku ay u hayaan Jamhuuriyadda Islaamiga ee Iran waxa kale wadamadan ay ballan qaadeen sida la leeyahay dhamaantood mana qarinayaan dabcan wasaaradooda arrimaha dibadda iyo danjiriyaashooda ayaa ku hadaaqay waxay leeyihiin suurtagal ma aha in la daawado Iran oo kaliya in la burburinayo gardarada Mareykanka iyo maamulka gumeystuhu waxay noqotay bay yiraahdeen musiibo dunida oo dhan saameysay sheeko kale oo yaab leh iyana wasiirka arrimaha dibadda dawladda wadanka Ruushka Sergey Lavrov ayaa si kulul u difaacay isdifaaca ama dawladda wadanka Iran howlgalka ay ku jirto waxa uu weerar afka ku qaaday wadamada Carbeed waxa uu yiri markii
markii la duqeeyay dowladda wadanka Iran ma arag buu yiri adinkoo dhaleecaynaya Israa'iil iyo dowladda wadanka Mareykanka markii la laayay buu yiri hogaamiyaasha dowladda wadanka Iran laguna xadgudbay wadankaas ma arag buu yiri wadamadan Carbeed adinkoo dhaleecaynaya sidoo kale tona cambaareen u jeedinaya maamulka gumeystaha Israa'iil iyo dowladda wadanka Mareykanka caruur badan oo dumar u badan ayaa lagu laayay iskuulo ku yaala ayaa lagu yiri magaalada Tehran ee caasimadda wadanka Iran marna ma arag adinkoo dhaleecaynaya saaxiibadayada Carabta ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda dowladda wadanka Ruushka Master Sergey Lavrov laakiin dhinaca kale waxa uu yiri laakiin markii dowladda wadanka Iran ay u qumtay ama u istaagtay inay ka jawaabto buu yiri weerarada gardarada ah ee ka imaanaya dhinaca iyo Mareykanka maamulka gumeystuhu waxaan aragnaa buu yiri adinka oo dowladda wadanka Iran yool baaraya hadii aad daacad ka tihiin mantiqana aad deganaan u rabtaan maxaad uga hor joogsan weysan ayuu yiri dagaalka gardarada ah ee dowladda wadanka Mareykanka iyo maamulka gumeystaha Israa'iil ka imaanaya inkastoo aan hubo buu yiri qaarkeen inay isku dayeen inay ka hor istaagaan haddana taasi ma dhicin kuma guuleysan ayuu yiri waxaasan idinka degayaa buu yiri dhaleecaynta aan xadka lahayn ee dowladda wadanka Iran ma moodaa markan dowladaha Ruushka iyo Shiinuhu seeftooda ay galka kala baxeen ka gadar markii muddo 10 maalin ah oo dagaal aan naxariis lahayn oo gobolka bariga dhexe oo dhan iyo guud ahaan caalamka saameyn oo isku yeeshay ay isaga difaacday dowladda wadanka Iran ilaa iyo hadda khubarada militariga iyo dadka dagaalka saadaalinaya waxay leeyihiin 85 wax ka badan boqolkiiba dagaalka Iran ayaa ku guuleysatay halka dowladda wadanka Mareykanka maamulka gumeystaha Israa'iil iyo sidoo kale caloosha u shaqeystayaasha Carbeed iyaguna dagaalka ku guul dareysteen 95 boqolkiiba Mareykanka iyo Israa'iil iyo xulafadooda Carbeed gaar ahaan kuwa khaliijka waxay sheegan karaan oo kaliya inay dileen hogaamiyihii ugu sarreeyay wadanka Iran Ayatollah Ali Khamenei iyo saraakiil sare guushooda waxay ku xiran tahay maalintii ugu horeysay ee dagaalka maalintaas oo dhinteen saraakiil badan oo ka tirsan Jamhuuriyadda Islaamiga ee Iran oo ka mid yahay Allah u naxariistay ninkii ugu sarreeyay wadanka Ayatollah Ali Hussein Khamenei laakiin wixii ka dambeeyay maalintaas ilaa iyo maanta uu dagaalka soconayo halis iyo walwal tar badan ayaa haysta Carabta khasaaro culus ayaa gaaray gobonimadooda iyo waxa sheegay jireen meel cidla ayay ku dhacday walwal tar beel ah iyo hubanti la'aan mustaqbalkooda ayay la hordalaayeen hogaamiyaasha wadamada khaliijka oo Imaaraadka Carabta boqortooyada Qatar iyo Sacuudi Carabiga ay uga horeeyaan marka wuxuu leeyahay wasiirka arrimaha dibadda dowladda wadanka Ruushka Master Sergey Lavrov si wanaagsan inaad u dhuuxdaan dagaalkan ayay idin la tahay laakiin dhaleecaynta Iran oo kaliya loo jeedinaya sax ma aha ayuu yiri Iran inta weerar qaadayna ma weerarin wadan caalamka ku yaala mana dilin madaxdiisa ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda dowladda wadanka Turkiga wasiirka arrimaha dibadda dowladda wadanka Ruushka waxaad moodaa hadda si wanaagsan inay isla jaan qaadayaan isaga iyo xulafadiisa Iran ma qarin dowladda wadanka Turkiga ee Ruushka in wax walba ay diyaar u tahay ninka ugu sareeyay amniga qaranka wadanka Ruushka Putin ninka ku xiga Dmitry Medvedev oo isla markaana ahaa madaxweynihii hore ee wadanka Ruushka imakan gudoomiye ku xigeenka koobaad ee amniga wadanka Ruushka qowmiga ayaa wacd ku maray Iran wax u baahataba inay heli doonto hadii loo baahdo ayuu yiri kama qomameynayno inaan bambooyin ama madaxyo hub nuclear oo samaysan kaliya u baahan in la isticmaalo inaan gacanta ka saarno dowladda wadanka Iran hamoodina ayuu yiri kuwa Iran in dowladda wadanka Ruushku ay Iran marna ka kaftamayso waa fariin dadaada oo markaas ka imaanaysa Beijing iyo Moscow oo ku foorartay Tel Aviv iyo sidoo kale Washington lagu daray xulafada Carbeed ee caloosha shaqeystayaasha nimanka Carbeed ee jawaasiista ah ee hijabada xiran ayaa iyaguna hadda xaalku waa ku liitaa Imaaraadka Carabta oo warbaahinta Israa'iil yool baaraysan waxay wariyeen inay isku dayayso inay Iran weerarto laakiin talaabo walba oo Iran ka dhana waa huba in Carab badan si gaar ah gobolka Khaliijku uu markaas isku bedeli doono magaalada Gaza mooda hogaamiyaasha Carbeed ee jawaasiista ah ee hijabada xiran nafsiga ay ka galeen reer Gaza in iyagu hadda luqunta u suran yahay wararkani wixii ku soo kordha waan idin la wadaagi doonaa saaxiibada iyo dib intaan kulmi doono nabadgelyo